mas-uuliyiinta maamulka isbitaalka Laascaanood ayaa gudoomiyay deeq lacageed oo loogu talagalay quudinta bukaan-jiifka qaybta TB-da. deeqdan lacagta ayaa waxaa ugu soo deeqay bukaanka Faysal Dirir Yuusuf oo ku nool dalka Mareykanka iyo Yasmiin Jaamac Cabdi Bile oo markasta ka qayb qaadata baahiyaha isbitaalka Laascaanood iyadoo deeq kala gedisan soo gaarsiisay isbitaalka Dr. Cabdi Maxamed Buraale oo ah dhakhtarka qaabilsan qaybta TB-da iyo qaybaha kale ee bukaanka socodka isbitaalka Laascaanood ayaa ka hadlay deeqdan lacageed ee lagu soo tabarucay dadka bukaan-jiifka qaybta TB-da wuxuuna sheegay in ay wax weyn ka tari doonaan quudinta dadka bukaanka oo aan haysan quudin joogto ah. aniga waxaa la yiraahdaa Dr. Cabdi Maxamed Buraale waxaan ka shaqeeyaa isbitaalka Laascaanood qaybta TB-da muddo qiyaastii 20 sano oo imika halkan baan joogaa qaybta TB-da Laascaanood baan qaabilsanahay dawargoynta xanuunka la yiraahdo TB-da oo u badan ku dhacda feeraha lafaha caloosha meelo badan bay TB-da ku dhacdaa saad u soo tihiin intaba waanu ka daweynaa gobolka Laascaanood iyo gobolada u dhow sida Cayn oo kale iyo Hawdka iyo wixii bukaanweynoo yimaadaan waa daweynaa. waxaa jirtay barihii dambe xaqii raashinka waa bariga hore in hay'ad Finland oo saxan la yiraahdo noo qaabilsaneed raashinka bukaan-jiifka barihii dambe waa naga joogsaday in support-koodii baa naga joogsaday dabeetana waxaa bilaabantay inay bukaan-jiifkii isbitaalka noo jiifay ay waayaan raashinkii ay cuni jireen. lacagtii baa naga dhamaatay waxaan bilownay inaanu dalabno aan weydiino shaaliyadda Sool oo degan Europe iyo North America iyo degan inay lacag u soo diraan cidii soo caawin karaysa cidii wax soo diri karaysa. waxaa gabadh la yiraahdo Yasmiin Jaamac Cabdi Bile ayaa ugu horeysay noo soo dirtay lacag $1,000 gaaraysa noo soo dirtay waliba uu socotaa lacagtii way u socotaa ka bacdi waxaa lacag noo soo diray in la yiraahdo Faysal Dirir Yuusuf oo degan North Dakota Grand Fox magaalada la yiraahdo degan ayaa lacag noo soo diray wuxuu yiri lacagta aniga iyo dhalinyaro badan oo dhalinyaradii gobolka Soola ku dhalatay ah ayaa lacagta idin soo ururiyo idin soo diray sida ula socda lacag kalena waan idin soo diri doonaa hadii alla idmo. mid waxay noqotay sida runta naga farxisay lacagtaasi waayo baahi badan baa jirto xagga raashinka ah raashinka wuxuu u baahanaya in suugo bariisiya hadii la kariyo suugo loo baahanaya hilib baa loo baahanaya waxaa soo dhan iyo biyo macaan waxaa soo dhan waa in meel kale laga keeno kharashkoodi hadii kale looma karin karayo oo raashinka mid soconayo ma noqonayo. imika waxaanu helay awood aan ugu karino qadab fiican iyo casho quraacana waxaanu siinaa buskad iyo waxaan kaasa xaaladooda aad bay wanaagsan tahay durtaba waxay bilaabeen dukaankii inay soo saxdaan wararkii dumarkii way soo saxdeen raggiina way soo saxdeen maalin walba qaar baa seexanaya waxaan filaynaa waqti yar ka bacdi dhowr ayaamood ka bacdi meelaha inay ragguna buuxsamaan dumarkuna in badan ay noo soo seexato waarka noo soo jibsaan. waa si kaleera weeyaan oo yacni haddii la waayo raashinka bukaan-jiifka haddii la waayo waxaa isbitaalka empty buu noqonaya waxaa ka baxaya bukaan-jiifkii oo dhan banaanka ay aadayaan qaarna gobolada kale ay aadayaan wax qarashkii ugu dambeeyey waxaan ugu mahadnaqaynaa ninkaa la yidhaahdo Faysal Dirir Yuusuf oo degan North Dakota magaalada Grand Fox. marka qadarka lacagtii soo gaarsiiyay lacagtuna soo gaarsiiyana waxay dhantay $950 lacagtii waxaa lagu hayaa safeka isbitaalka lagu hayaa waxayna u taala lacagtii maalin walba wixii kharash loo baahdo inaan ku isticmaalo hadhowtana Faysal iyo Faysal ugu baaqaysaa marka jaaridaha kale inay marka inay soo gaaraan iyadoo si transparent u isticmaali doono lacagaha noo soo diro jaaliyadda reer Sool ee degan North America iyo Europe iyo meelaha degan waxaan ugu baaqaynaa in wixii qacanayna soo gaarsiin karayaan ayna soo gaarsiiyaan wixii mucaawanaad baa loogu baahan yahay gobolkii cid kale uma maqna waxa u maqan dadkii u dhashay gobolka Sool oo ku maqan banaanka. Dr. Cabdiraxmaan Ruush oo kamid ah mas'uuliyiinta caafimaadka isbitaalka magaalada Laascaanood kana hawlgala qaybta TB-da
ayaa dhankiisa si weyn ugu mahadceliyey qurba joogta deegaanka oo markasta ka qayb qaadata quudinta dadka bukaanka ah oo ay muddooyinkii dambe soo gaadhay raashin la'aan. dad fara badan oo xilliyo hore waxyaabo fara badan noo qabtay baa jira, laakiin dadkan ugu dambeeyay shakhsiyaadkan oo kaalmadooda ay ku soo aadayso xilli aad u xasaasiya oo baahi badani jirto oo gabadha Yasmiin iyo wiilka Yuusuf Dirir oo iyaga laftooda laga yaabo inaysan ka soo bixin jeebabkooda gaar ahaaneed ay ka soo ururiyeen dad iyaguna walaalahooda oo iyaguna jecel waxtarka ummadda, laakiin dadaal dheeraada u galay oo iyagu maaragtay laga yaabo inay abaabuleen ama ay uga dadaal badnaayeen. dadka aad baan ugu mahadcelinaynaa. dadka kalena sidaas si leeyahay waxaan ka filaynaa iyaguna inay ka qayb qaataan waxyaabaha lagu caawinayo ama kaalmada laga geysanayo dadka walaalahooda ee baahan sida dadka jiifa cusbitaalka Laascaanood. qaybtan TBda ama qaaxada 50 capacity-ga ama sariiraha yaala waa 50 patient. marka qaarkood waxa dhici jirtay markii raashinka uu dhakhtarku sheegayay laga karin jiray meesha in meel la seexiyo la waayi jiray oo dadku waxay haysteen waxyaabihii ay cuni lahaayeen ee daawada u kaalmaysan lahaayeen. ayaama dhowey waxa dhacday 10 qof inaysan jiifin sababtoo ah waxba laguma karin jirin meesha. dadkuna waa fara badan yahay, waxay ka yimaadaan dhammaanba daafaha degmada Laascaanood kale kama yimaadaan gudaheeda, waxay ka yimaadaan magaalooyinka fogfog, degmooyinka reserve area-da dhul aad u ballaaran oo mararka qaarkood oo aad arkaysaan jiilaal iyo abaaraha iska jira. noloshuna waxay ku tiirsan tahay inta badan baadiyihii baa mararka qaarkoodba wuxuusan lahayn isaga laftiisii tabcaan noqonayaan, abaara ku dhacayaan oo qofkii markaa wuxuu kaalmaystaba ama dadkiisa inay wax u soo diraanba aysan awoodaynin. marka ayaama dhowey waxaa dhacday cusbitaalka qaybta qaaxadu inay firaaqo noqoto oo dadku qof walba meel iyo qaraabo iyo ciddii wuxuu meeshu wax u raadsan karay u raadsaday. laakiin hadda inta lacagahan yaryar ee dhakhtarku uu sheegay ayna soo gaadheen alxamdulillah, beeshankii wuu soo noqday, waa la jiifaa, 3 waqtiba waxbaa loo kariyaa. muxuu ahaayey tooy haddii taa la sii joogteeyo marka waxaan filayaa in si fiican ay dadkaasi u heli doonaan dhinacii daawada oo hay'adda WHO ay bixiso, dhinacii cuntadana haddii laga kaabo oo cid kale inooma maqna ee dadka jaaliyadaha ah ee dibadda jira iyo dadka bulshada gudaha ku noolba haddii ay naga caawiyaan arrinta feedinka ama quudinta beeshanka oo aan cidna lagu hadlayn. waxaan u malaynayaa inay waxtar fiican noqon lahayd. walaalaheena kale iyaguna jecel inay ka qayb qaataan meel kastaba ha joogeen, waxaan ku boorinaynaa inay cusbitaalaadka iyo meelaha kale ee la midka ah inay ka warqabaan oo ay soo kaalmeeyaan. annaguna waxaan naga ballanaa inaan lacagtaa sida ugu habboon u maamulno iyadoo uu garabkaygana taagan yahay agaasimaha cusbitaalka Laascaanood oo isaguna had iyo jeer kamida mas'uuliyiinta jecel wixii soo gaara cusbitaalka in had iyo jeer sida ugu wanaagsan oo transparent in loo maamulo. waan mahadsantihiin. agaasimaha isbitaalka magaalada Laascaanood Ismaaciil Muuse Ciise ayaa ugu mahadceliyey deeqdan lacageed walaalaha jaaliyadda ee ugu soo tabarucay dadka bukaanka ah, wuxuuna sheegay in lacagta loo siin doono raashin 3 waqti ay quutaan. garan karaysaan oo faham karaysaan ciddii dareen leh dhibaato haysata runtii qof buka ka mas'uula ciddii garan karaysa oo baana fahmi karayso og dhibaatada uu ku hayo bukaanku. waa arrin runtii xasaasiya oo aad aan ugu mahadcelinayno deeqdan ay soo bixiyeen dadka gaarka ee Cabdiraxmaan iyo dhakhtarkuba magacaabeen. sidaa daraadeed dareen bayna gelinaysaa runtii, dareen fiican bayna gelinaysaa. waayo bukaanka markaad wax hayso wax kastaba ha ahaato ama ha yaraato ama ha badato iyo markaadan wax hayn way kala gedisnaanaysaa. adiga dareenkaagu waa kala fiican yahay. marka runtii dareen fiican bay noo tahay. iyagana waa arrin runtii waajib ku ah oo laga sugayay lagana sugi doono haddii Rabbi idmo. loona baahan yahay in waajib baa ka saaran dadka halkan degan maadaama dadkii ka dhoofay waddankan ay yihiin deegaan ahaan u lahaa. markaas laajligeed waxaanu aad uga codsanaynaa iyaga iyo dadka kale ee dareenka waddaninimaduba hayso inay qiimeeyaan meelaha public ah sida isbitaalada oo kale. waa meel dhibaatadeedu iska joogto tahay, cid runtii dabooli kartaa baahideedana aanay jirin. marka waanu soo dhawaynaynaa cid kasta oo gacan naga siisa dadka bukaanka ah ee waqtigu noo gartay inaanu mas'uulka ka noqono. wixii kale ee jaaliyada ee ku soo darsanaya wax ama gacan ka soo geysanaya dadka bukaanka ah ee aanu mas'uulka ka nahayna waanu soo dhawaynaynaa.
waxaanu aad uga mahad celinaa runtii dadkan dee soo bilaabay hawshan programkan feedinka ah ee iska kooban dadka soo bilaabay waan uga mahad celinaa aad baan uga mahad celinaynaa Ciise Cabdi Samad Dabayl Somali Sat TV la saanad